الصبا والشجر لا تهدي الضياء لها يا قمر تهدي الضياء لها يا قمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa 10 qalad oo ay sameeyaan dadka marka ay luqadda cusub baranayaan. runtii luqad cusub marka baranaysi waxaad maskaxdaada ku sameynaysaa inay korto oo aad gasho jawi kale oo cusub. luqad aan luqadaada hooy ahayn inaad barato waxay u baahan tahay samir iyo waqti badan. luqaddu waxay ka mid tahay xirfadaha caalamka la iskugu faano. luqaduna ma ahan cilmi ee waa xirfad. qofba inta uu qofka kale ka xirfad badan yahay ayuu ka jaanis badan yahay. haddii lagu yiraahdo xasuuso qaar ka mid ah qaladaadkaagii xilligii kuugu horeysay ee aad luqad cusub baranaysay, waxaa kugu soo dhacaya inaad garanayn sida saxda ah ee erayada loogu dhawaaqo iyo qaladaadka naxwaha. qaladaadka in lagu dhacaa way badan tahay marka luqad cusub la baranayo. inta badan waxa aysan dadku wada garanayn in qaladaadkaas aan loo aqoon inay yihiin kuwa khatar ah. dhanka kale marka aan eegno waxaa jiro qaladaad dhab ah oo dad badani ay galaan iyagoo aan fahamsanayn, kuwaas oo ugu dambeyn keena in barashada luqadda lagu fashilmo. waxaa ka mid ah qodobka koowaad, inaad ka baqdo ku hadalka luqadda. waxaa dhici karta in ku hadalka luqad qalaad uu yahay mid adag oo dhib badan. waa sida dad badani aaminsan yihiin, laakiin xaaladdu sidaa way ka duwan tahay. marka aad aragto qof ajnabi ah oo luqadda dalka ku hadlaya, aad ayaad ugu farxaysaa maxaa yeelay waxaad ogaanaysaa qofkaasba inuu bartay oo adiga kula mid yahay. sidaa darteed dadka moodaya marka ay luqad ajnabi ah ku hadlayaan oo ay jajabinayaan in lagu maadaysanayo ama lagu qoslayo, fikir sax ah maahan midkaas. mar kasta oo aad wax isku daydo cid ku garab istaagta waayi maysid. kaliya waa inaad haysataa dhiiranaan naftaada ka imaanaysa oo aad qalbiga gashataa inaad ku hadli karto luqaddan, barana karti sida dadka kaleba u barteen. qodobka labaad waa khalad qaadasho la'aan. marka ay dadku luqad cusub baranayaan waxay aaminsan yihiin in khaladku yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana ay waajib tahay in wax walba loo sameeyo sidii khaladka looga dhowrsan lahaa. waxay eegayaan oo kaliya khaladkii ay sameeyeen intii ay wax ka baran lahaayeen. waxaa lagama maarmaan ah inaad khaladaadkaaga aqbasho oo aad wax ka barato, maxaa yeelay maqaldama waa ilaahay. ma jiran qof adduunkan ku nool oo aan qalad gelin markuu u socdo dhanka guusha ama waxyaabo uu rabo inuu xaqiijiyo. ogowna khaladku waa furaha guusha. qodobka saddexaad, hadaf la'aan. ma jira adduunkan wax suurtagelaya qorshe la'aan ama hadaf la'aan. waa inaad leedahay qorshe kuu cad oo aad naftaada ku tirahdaa xilligaas markuu yahay waqtigu waa inaan luqaddan gebi ahaanteedba soo afjaraa oo noqdaa mid si fasiixa ugu hadli karo. waa inaad soo qaadataa warqad iyo qalin kadibna aad ku qortaa sanadkaas iyo bishaas waa inaad noqdaa mid luqaddan ugu hadla sida dadka u dhashay oo kale. sidoo kale hadafka oo la qorto wuxuu faa'iido u leeyahay inuu mar walba oo aad aragto qoraalkii aad qoratay inuu ku dhiirigeliyo oo uu ku gubaa, maxaa yeelay waxaad dareemaysaa in waqtigu kugu socdo. qodobka afaraad, erayo cusub oo la iska barto oo aan wax nidaam ah lahayn. marka aad eray cusub baranayso oo aan liis gooni ah xiriir la lahayn, inaad hadhow xasuusataa way kugu adkaanaysaa. marka dambena waxaa ka dhalata arrintaas natiijooyin daciif ah, halka dadaalkaagii uu noqonayo hal bacaad lagu lisay. waxaad samaysaa istiraatiijiyad cad marka aad erayada xifdinayso. liis gooni ahba mar xifdi. tusaale ahaan, erayada cunno karinta ku saabsan mar wada xifdi, kuwa ayraboorka ku saabsan mar qura wada xifdi, kuwa ku saabsan siyaasadda mar qura wada xifdi. wax walba waa inay nidaam lahaadaan, haddii kale guushu ma suurtagelayso. qodobka shanaad, waddo khaldan oo la raaco. haddii waddada aad luqadda ku baranaysaa ay kaa xumaato, barashada guud ayay saamayn ku yeelanaysaa. markaas kadib waxaad nacaysaa luqaddii oo inaad barato ayaad mar kale ka fogaanaysaa. waxaa habboon inaad degsato qorshe habboon. marka aad luqad cusub baranayso mar walba xasuuso sababta aad u baranayso luqaddan cusub. waxaad xasuusataa inaad naftaada u samaynayso kiridhid aan lacag lagu qiimayn, waana arrinka kuu keenaya inaad horumar weyn ka samayso noloshaada guud ahaaneed. marka aad baranayso luqaddaada hooyo luqad aan ahayn, luqadday rabta ha noqoto, waxaad dareemaysaa kalsooni xaddhaaf ah oo waxaad noqonaysaa qof noloshiisa jihayn kara. qodobka lixaad, doorashada hal waddo oo keliya. dadka qaar waddo keliya ayay raacaan marka aad luqad cusub baranayso. waa inaad tijaabisaa waddooyin kala duwan oo aad ku baran karto luqaddaas. marka aad naftaada hal waddo oo keliya aad barto, si sahlan ayaad ku caajisi kartaa. isku day intay suuragal tahay inaad waddooyinka kala badbadasho. tijaabi casharro luqadda ah, buugaagta naxwaha, websaydyada luqadaha, buugaagta codka aflaanta iyo riwaayadaha. qodobka toddobaad, dadaalka xooggan oo aad mar qura wada saarto. in aad gaarto go'aan aad luqad cusub ku baranaysaa waa arrin soo jiidasho leh. sidaa darteed bilowga hore waxaad isku dayaysaa inaad buugaag badan soo iibsato, maalintii dhowr saacadood aad ku dadaasho barashadeeda.
isbuuca koowaad marka uu dadaalkaagu meesha ugu sarraysa gaaro ayaad arkaysaa inaad mar qura hoos u hoobanayso oo aad ka caajisayso in xitaa nus saac qura aad maalintii luuqadda barato. sababtana waa xawaaraha xoogga leh ee aad ku bilowday. waxaa caadi ah inaad xamaasad weyn dareento xilliga aad luuqad cusub bilaabayso, laakiin ha cantuugin inta aad calaajin karto in ka badan. xamaasadaada iyo dadaalkaaga marxalado kala duwan ka kala dhig oo si tartiib tartiib ah u bilow. sahay wanaagsanna qaado maadaama ay waddadu dheer tahay. qodobka 8aad, dhegaysiga oo kugu yar. isku day inaad luuqadda ka dhegaysato in kugu filan. arrintan ku hadalka iyo dhawaaqa erayada ayay ku hagaajinaysaa. tusaale ahaan, ilmaha marka uu yar yahay ma yaqaan af Soomaali oo kuma hadli karo, haddana iskool lama geeyo si uu u barto. 7 sano ama 5 sano ka bacdi waxaad arkaysaa isaga oo kaa badiya ku hadalka luuqadda. waxaas wax kale maahan, waa dhegaysi fara badan. markuu yaraa ayuu maqlaayay hooyo, aabbo iyo hadalka dadka. dhegaysigu waa halbowlaha luuqad walba oo dunidan ka jirta maanta. qodobka 9aad, in mar kaliya aad isbuucii dhigato. intaad khamiis iyo jimco kaliya dhigato isbuuca, inta ka soo hartayna aad ka seexato. sax maahan middaas. waxaad u baahan tahay maalintii 10 daqiiqo oo qura oo aad luuqadda kula falgasho. halkii aad asbuucii 2 maalin baran lahayd, waxaa kugu filan inaad maalin walba 10 ama 20 daqiiqo kaliya u qoondayso. qodobka 10aad, inaad si sahlan isku dhiibto. inta badan marka ay qof wax ku adkaadaan, waxay u badan tahay inuu ka haro oo ka niyad jabo. sidaa darteed isku diyaari daruuf kasta oo ku soo wajihi karta. naftaada u layli inaad xaalad walba la qabsan karto. mar walbana xasuuso hamiga aad luuqaddan u baranayso. ma jira adduunkan wax adag, wax kasta waa la baran karaa. waa adiga iyo dadaalkaaga iyo baahida faraha badan oo aad shaygaas u qabto. ha isdhiibin. inta aad awooddo soco, inta aad awooddo hadal, inta aad awooddo fikir, marna ha isdhiibin. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.